munaasabada daahfurka wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda khawaariijta oo ka dhacday xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabada oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina ay ka hadleen qaar kamid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay ayaa waxa inta badan looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in guud ahaan dalka laga sifeeyo kooxaha khawaariijta madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo goobta ka jeediyay khudbo dhinacyo fara badan taabanaysay ayaa siyaasiyiinta ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay isku mowqif ka noqdaan sidii looga sifeyn lahaa kooxaha khawaariijta guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya taanada aan ku darsano anaguna ceyriniyo naga cararin si hadda waa loogu sheekaysan wuu dhamaan doonaa wuu tagi doonaa wax dhinto wax isdhiibo wax carar uu noqon doonaa marka ay soo dhamaadaan waa la sheekaysan doonaa buugaag baa la qori doonaa taariikh ay noqon doontaa warbarrito yaan nala dhihin kuwaan ayagoo iska fadhiya laga ceyriyay ayagii iskama ceyrin iyo taariikhda loo gelin Soomaaligu waa iska ceyrisay annagana iska ceyrin nagalama tira badno nagalama xoog badno nagala Soomaali dadka deegaanadan Koonfur Galbeed degan dadka ugu tirada badan ugu xoogga badan ugu diinta badan ugu nolosha fiican ugu geesisan yaa tihiin haddii marka intiiba annagoo naloo soo gurbado oo aan idhaahno annaga tabaraan u weyn naga wada taariikhday noo gelaysaa beri baana laga sheekeynaa ani ma rabo marka waqtiga saas hadday noqonayso inaan qayb ka ahaado insha allah waxaan rabaa kuwa laga sheekeynayo oo waa rogeen waa ceyriyeen la leeyahay taariikhda lagu qoraayo haddii aan noolahay haddaan dhintabo sharaftaas iyo legasigaas inay meesha ii gashaan rabaa ma rabo in yiraaho madaxweyne Laftagareen suu meesha u fadhiyay baa shabaab laga ceyriyay asagii dadkiisi taariikhda inay ii gasho ma rabo marka annaga dhanayna mas'uuliyadda saaran tahay munaasabad fiican oo muhiim ah yaan maanta u joognaay aan u wada kacno annagoo gacmaha ishaysano midaysan yaan awoodi karnaa inaan isdhaafino deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxaa la rajeynayaa inay si toos ah ugu bilaawdaan la dagaalanka kooxda khawaariijta iyadoona qorshaha uu yahay sidii la isugu furi lahaa dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo 12 sano ay go'doomiyeen kooxaha khawaariijta Siraaj Shaysaq warbaahinta qaranka Baydhabo.